ninkaas uu ku sameeyay fidma adduunka aan ka dhicin oo adduunka hadii lagu sii daayo fasaad hor lidanayo waxaan ka qabaa in la dilo sharciga lagu waxaan ka qabaa in la daayo waa kasta waa qadar waa dhacday qadartaas laakiin waxaan fikirkayga qabaa in la daayo oo cafis loo fidiyo maxkamadda sare ee dalka ayaa maanta u fariisatay dacwad ka dhan ah Sayid Cali Macalin Daawud oo ku eedeysan inuu gubay xaaskiisa Luul Cabdicasiis. kiiska Sayid Cali ayaa ka soo gudbay xeerarka kala duwan ee maxkamadaha waxaana uu ugu dambeyn joogaa maxkamadda sare oo maanta ka bilaabmayo. haddaba bulshada ku dhaqan magaalada Garowe ayaa fikirkooda wax ka weydiinay siday u arkaan dacwadda Sayid Cali oo maanta ka bilaabmatay maxkamadda sare iyagoo ku kala fikir duwanaaday. qaar ka mid ah ayaa sheegay in la cafiyo iyagoo qaar kalena ay sheegeen in maxkamadda ay sharciga waafajiso Sayid Cali. bismillaahi raxmaani raxiim. hooyo gurigeedii joogta oo awlaad korsanaysa oo ilmaheedii iyo reerkeeda xariibtan ugu jida ninkii gubay oo dab u quuray diintu waxay dhigaysaa dabku u quuray dabkiisa kale in la geliyo waana ku raacsana waana maxkamadda waxaan baaq u dirahayaa abaalkiisa in la mariyo. maxkamadda sharafta leh waxaan dhihi lahaa kitaabka quraanka kariimka iyo diinta islaamka waxay ka qabto hal lagu xukumo dhihi lahaa diinta islaamka waxay qabtaa lagu xukumo ninkaas wax kasta oo mutaysto diinta islaamka ku soo xukunta lagu xukumo dhihi lahaa may fikirada ku qaba may boo alxamdulillah anti may boo nagaasi shariga wala iga wala mari ya may boo alxamdulillah fikirada taaso maxkamadda maanka baagay may boo haye sidari hoo baat may boo la dhaafo umadwada no ka deeydaas hoo buusatay may boo la kharijiyo may boo tin umadwada no ka deeydaas warban shariga may anka baagay may boo yo maamulka may boo haye anti wadada saxan wal mariya وانا كسلام ما شاء فكركيga horta maxaa ka qabtaa male waan u maleynayaa sababtoo ah nin xaaskiisa gubay dambi ka culus ma jiro moogtahay marka ha kaliya hal codsi baan maxkamadda u diray aniga fikirkaygu waxa weeye dee waxa la geliyo maaha maxay fikirkayga ka qabtaa xulooran karo maaha moogtahay maadaama nin xaaskiisa gubay oo waliba xaamilo ahayd uu lahayd waa dambi aad u culus moogtahay dambi laba qof buu galay moogtahay hal mid laga soo qaad marka waxa weeye walaale maxkamadda hal baaq u kaliya baan u dirayaa inaan hadal la gelin lalana warwareegin ninkaas waa xukuman yahay maxaan ku xukumayaa waa la garanayaa sharci diinta islaamka iyo maxaan ku raahdaa sharciga dalka u yaala inta way garanayna marka walaale lama gelin karo muddo lama gelin karo maxkamadan waxaan ugu baaqayaa inaan dhaqankaas suusan ugu sii faafin dadka bulshada ugu sii faafin in ninkaas la mariyo waajibaadka uu leeyahay oo ah dirtooga shaa ninkaas dirtooga shaa way waajibaadkiisa dilka lagu madagdo haduu dambi galay oo maxaa Cali oo sikin father ahaa ya oo leeyahay xaaskiisii buu gubay ya marka in muxuu haysto maxkamaddu ya anagu afid ka dhaaf anagu soo magal maxkamaddu dil inay muxuu wax ku degdegto ma baahadi laakiin ninkaas xaaskiisii uu gubay oo gabar miskiin ah waliba uur leh sidee loo deyn karaa ninkaas waxa loo deeg ma laga qaadan karo ciyaalkaas waqti ma haysto ya lagu fudaan laakiin dil wuxuu isaga ku khaldamay inuu khaldamo ma baha laakiin diintu waxay qabtaa maskaxdiisa caalaheena waa laga yaabaa ayaan maskaxdiisa waa caadi diintu way qabtaa oo qofka wax dila in la dilo laakiin waxa jira waxa faaranteen la isugu xiliyaado odayaashu dhameystaan inay magtooda qaato ciyaalku bisha adiga fikirkaaga wasida عيال جامعة وحبرشة وعاص أول بفا أبوك حيام وهم مركو ضيق مسير واحد لكم أقول إلا عفية محكمة ومغير فكر كي وعن كقبا إلا الدايو وعكسنا وقدر وعد على قدر تاسي لكن وعن فكر كي قبا إلا الدايو وعافس لو فيديو صابت لو ديني معاته يلو دين تقبطه إن قف دليل دين إسلام كواقبته قفك بدي إلا دينه لكن إلا عفية عفس كنا ماشي وكتيرا هدي لبضر رير اسكو أقبلان إلا عفية ولا عفين كرا دينا ولا قاعدن كرا إلا عفية أنا فكر كي صار وينيا مركو على هلا عفية هلا عفية أنا وعفس بان دلبنايا إلا عفية سيدنا علي ولا الدايو أيام دلبنايا وأنا عفس إن شاء الله محكمة بحكسو قبل بس إلا عفية هذيك مجعلان قف فاهم الكاغا إن لجوا دنا قف جوا العفية ما تشعل لكن وحي واد على قدر قدرتنا الله بكوي وهو البواد عن لكن ويد عن برنامج كاسي ويلكاس نحاس وقبل لكن إلا عفية بان عطسنا يا أبو ماسن اللهم صل على محمد وحنا كذا فكر كدين إلهي شرع ونوجزية
وإلهي إنه تجيي نكاس وخصوصي فدما أدونك عن كدعين وأدونك هدي لكوشي دايو فساد هو اللي ضلاني waxaan ka qabaa in la dilo sharciga lagu qaado sababtu ay tahay waa wax aan horay u dhicin in carruurtiisa xaaskii dab saaray haddii la daayo dalka oo dhan fidmu ka abuurmaysa sidaa darteed waa inaan la bayn innaba waa in la dilo weeye sharcigu waa qabaa anigu waa